توفيق الله نوافجيه سيدا خير الله سبحانه وتعالى نوافجيه الله سبحانه وتعالى وحليه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان سكا شرا وناقا يتقوضا إثمك دنبك حمانتنا حسوكا شاننا واتقوا الله لك بقضاء إن الله شديد العقاب تعاونكو عدك عادي ميها ميكروفونك ولا مقلع يا ميكروفونك تعاونكو أما وناقة قف كستو مسلم وناقو دونايا قف كستو مسلم خير بدونايا قف كستو مسلم وحو دونايا نرول وناكسن في الدنيا والآخرة إن الفرح له واجعشه إن تكونوا لاتو نرول راحله واجعشه إن تكونوا لاتو نرول إلهي سبحانه وتعالى رالي وكيهي واجعشه لكن محال وهلا سؤاشي السويدين تلو حوي سي أنيقو أهلي كان نرول وناكسن oo waxa way khayr leh nolol wanaagsan aan ku faraxsanahay nolol wanaagsan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali iga yahay qofka ugu wanaagsan oo ugu nimcaysan adduunka waa qofku Alle subhanahu wa ta'ala raali ka yahay haduu Ilaahay raali ka noqdo waxa noqonaysa qofka ugu nimcaysan haduu san raali ka ahayn noqomaysi nabiga sallallahu rabbi wa salaam alayhi hadith ajiib ayuu noo sheegay hadithku waxa weeye يوم القيامة يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة وحالكينا قفك أقوى ناكسنا وقول معايسنا الدنك وقول معايسنا قفك أمركي لقبته ولكن أهل النار نار تلقلنا يا غمسة فيغمس في النار غمسة هل مرء بنات قدها السيدة اللي يقلنا يا كذبنا ولا قصو صارا وحاليه هل رأيت من نعيم قط ولقى ما أركتي وح نمعة ولقى ما أركتي وح برواقة ولقى ما أركتي وح راحة فيقول حورنا يا ولقى ما رأيت نعيم قط وح نمعة ولقى ما أركتي برواقة وقفكوني مع سنة الدون يحول وح كستهيستي وح كستو الدونك أباها يا عافي ما دهيستي لكن هل غمسة هل مركلية نار سالو قرينايا مركي لغو صاروا حوليه ولي مارك ثم يوحى لكينا يا بأبأس أهل الدنيا تدكي قفكي يقول لبات سنة أهل الدنيا أو لبات بدن كم نقطي فقري لباتو وحكس كم نقطي لكن ومن أهل الجنة أهل الجنة وي فيغمس في الجنة غمسة جنة باسدة هل مرلو قرينايا مكسو أركا نعيمها wuxuu arkayaa waxa jannada ku jiro khayr ah wuxuu arkayaa jannada biyo wabiyada waxa way ka daadanayo wuxuu arkayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu u diyaariyay qofkaas dumar ha ahaado marag ha ahaado waxa qofka uu arkayaa Ilaahay wuxuu u diyaariyay markaas wuxuu leeyahay weligay wax dhibaato ah ma arag marka nolosha dhabta ah oo qofka muslimka oo aqliga leh inuu ka fikiro ay tahay waa taa weeye nolosha dhabta ah tan lagu jiro hal mar ayaa ilbiriqsi ayaa la hilmaamaya bal iska daa adigu miisaal iska soo qaad saad u caafimaad qabto oo aad u tahay qof caafimaad taam leh sanad laba sano baa hal habeen madaxa laga qabanaya goos baa laga qabanaya habeenku dhan ba saxanays waxa nimco soo marto dhan baa hilmaamaysa waxa khayr ah soo marto dhan baa hilmaamaysa markaas waxa leedahay maanta waxa igu dhacay waligaygu ma dhicin ma xasuusanaysid nimcooyinkii habeenadii aad jiiftay oo xanuun la'aanta xasuusamaysid kaliya waxa ku muuqdo xanuunka kaliya waxa ku muuqdo dhibka ayaa ku muuqdo sida daraadeed adduunyada nicmada aad ku jirto iyo khayrka aad ku jirto وكأن الله سبحانه وتعالى وكسيي وخير كله كسيي وحانكو راح يسنكرتا هذا الله سبحانه وتعالى أدعي الله سبحانه وتعالى وحكو أمره هنا أتقالتي وحال الله كاريبا هنا إسكريبتي قف كستو اسمي زاميا لما أنت قف كستو اسأجه ما لها ضعيف ككنت هاي واسأجته
meelaha ku fiican tahay waa is ogtahay meelahu qalbigaada u liito oo xoogaa laga yaabo inuu dembi iyo wax kaas ogaana waa is ogtahay meelaha marka iska daawey adigaa isgaranayo haddii 100 muxaadaro aad dhegaysato iyo intaasoo muxaadaro aad ku jirto dadkana iska dhisto lagu haysto qof wanaagsan inaad tahay laakiin qalbigaada uu xanuunsan yahay oo aad diyaar u ahayn inaad wax iska bedesho waxba ku tari mayso inaad 100 muxaadaro dhegaysto waxba ku tari mayso inaad gabadha waa gabar mutaxajibad ah waxba ku tari mayso dadka kale inay ku amaanaan xaqiiqadu waxa weeye adiga iyo rabbiga calaaqa maxaa leedihiin adiga iyo rabbigaada maxaad calaaqa leedihiin adiga iyo rabbigaada maxaa idin dhaxay adiga iyo rabbigaada ikhlaaskaada siduu yahay waxa qalbigaada ku jiro miya carabkaada ka soo baxo mise qalbigaada iyo carabkaada waa iskhilaafayaan qalbigaada waxa kor muuqda waa iskhilaafaya Allah noo dambi dhaaf amiin dhaaf Allah noo dambi dhaaf xaaladda bisah waka ilaahay subhanahu wa ta'ala tawfiiqana waafajiyo ilaahay anaga dhigo kuwo qalbigooda iyo carabkooda iswaafaqayo ilaahay amaasheena mid kuwa khaalisa ka dhigo sida daraadad marka xisaabinaysi inaad isxisaabiso qalbigaada xisaabisaan loo baahan yahay Umar ibn Khattab wuxuu yiri xaasibu anfusakum qabla an tuhasabu inta lagu xisaabin yawm al-qiyamah adigu isxisaabi dib iskugu noqo waxa tirada anigu maxaan ku suganahay haddaan tago ilaahay hortiisa aan istaago maxaa anigu shaqaystay maxaan la hor istaagaya rabbi subhanahu wa ta'ala su'aal in isweydiiyo mudan weeye dhamaanteena in isweydiino mudan wanaaga kaliya marka tahay daciif ma tahay wanaag waan wada rabnaa salaada inaan waqtigeeda ku tukano waan wada rabnaa khayrka inaan ka shaqeyno waan wada rabnaa gabadha inay xaraanta iska ilaaliso jirkeeda banaanka soo dhigino quruxdooda ilaaliso way jeceshahay laakiin waxba ku jiidanaya shaydaan iyo naf baa kula xariira wama ubarri'u nafsi in an-nafsa la maratu bisu nafta xumaanta ayay waxa way markastaba waxa way ku jiidanaysa ay ku faraysa shaydaan baa ku shaydaan oo cadow ah sidee marka adiga isu xajinaysa wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa ila khayrka sukashano المؤمن ضعيف مع نفسه أو في نفسه قوي مع إخوانه مؤمن مكاته قبر مؤمن بمكاته ضعيف مكاته مكا كلياته هذا كليات جوته هذا تلفونك كم مشغول شو حلقية ومالك لا إناد قشو هذا كلياتك تمل لو قرينين وحلقية ومالك لا إناد كم مشغول شو مؤمن كقبر قفك مؤمن كوا ضعيف في نفسه كليا مركاته نفط هذا لا غير روح حلقك لا إنك حقبتان لكن قوي مع إخوانه مع أخواتها لكن قبلنا مسلمات أود بلاد مركي ولا عليها المسلمات كلا جوتو مركي لا جوتو دد وين أحسن أو مركز تبغى خير كوشي جايو مركي لا جوتو دد وين أحسن أو مركز تبغى حواي كده ينايسو أو قرآن كيسلا آخر نايان أو دكس يسو حاضر يسو محاضرة يسو حاضر يسو حماة إسكري بيان وناجي إسفريان مشغول بعد وحى كتهي خير نفط هذا إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر نفتو ما تقانا بود بان أحي نفتو ما تقانا عنيقو ما أنت وحواي واسكفر يا وحماي هدي كو أرقتو نفتو إنا بور تهي بورين أد كجرتو أو أد ميل اسكفر إيدو شرتك ومشغول نيسا واسكفر يحكو لي ميل فولا ما آد حوغا سوبا شايت حوغا نفتو صراحي ميل يربا قاسو قلا يحالي حوغا نفتو صراحي وحوين ما markaad meeshii tagto adoo is ilaalinaya wax arkaysa si tartiib ah meeshii uga marka dambe waxaas arkaysa dambigi adigoo dhax fadhiya na'uudhu billah maxaa meeshan ay keenay la tattabi'u khutuwat ash-shaytan shaydaanka tilaabooyinkiisa ha qaadin iska ilaali tilaabooyin buu ku dhigaya uu ku yaqaan meesha u jilicsan tahay iyo meesha waxa way quwadaada ay jirto marka markastaba markaad kaliya noqoto nafsuka naftaada illam tushghilha bil khayr shagalatka bil shar hadadan khayrka ku mashquulin oo muhaadaraadki iyo duruusti iyo wanaaga iyo dadka in la caawiyo iyo khayrka iyo markas in loo soo hadada isku mashquulin khayrka iyo wax inaad akhrisato sharta ku mashquulinaysa ufiisa adiga maalmaha khayrka ku mashquulsan tahay waad hilmaamaysaa waxyaabihi xumaa maalmaha kaliya noqotana xumaantii ku soo degdegaysa لأنه نفتها ماذا مشغول مركب مشغولي نفتها خيرك كو مشغولي وناك كو مشغولي
waxaa ku mashquulisaa dadka wanaagsan mashquulkana wuxuu imaanayaa in la iskaashado watacaawanuu cala albiri waاtaqwa walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan waاtaquu allah ina allaha shadiidu alciqaab wاlmu'minuuna wاlmu'minaat bacduhum wliyaau bacd mu'miniinta kuwa rag ah iyo kuwa dumarka ah bacduhum wliyaau bacd barka kale awliya isku yihiin xigtay yihiin way iskaashadaan mu'miniintana waa iskaashanayaan gabdhahana waa iskaashanayaan muxaadaraa jirto way iskaashanayaan qof baa dhibaataysan way iskaashanayaan maxaan qabana waxbarashada way iskaashanayaan adduunka maxaa xal noo ah horumarkeena maxaan ka shaqaynaya carruurteena see u tarbiyeynaa maxaa noo xal ah magaaladeena see uga shaqaynaa nadaafadda maxaan ka qabanaa yacni noloshaadoo dhanba waa diinta islaamka waa a complete way of life macnuhu waxaa weeye noloshaadoo dhan adigu waa islaamnimo wax kasta aad qabatoo khayr ah ilaahay ajar buu kaa siinaya axabu alacmaali ila allah suruurun tudkhiluhu fii qalbi lmu'min acmaasha ugu wanaagsan oo ilaahay subxaana wa tacaala uu jecel yahay waa suruurun tudkhiluhu fii qalbi lmu'min farxad aad geliso walaasha qalbigeeda si wanaagsan oo la hadasho qawlu macruuf wamaqfiratun khayru min sadaqatin yatbacuha adaa hadalka wanaagsanaa ka fiican sadaqa aad bixsanoodii xumaan aad ka dambaysiiso hadalka wanaagsan deriska hadalka wanaagsan gabdhaha walaalaha aad soo jiidato oo qofka xataa ku caayo iyo kan ku xumeeyo iyo kan waxaa waaye ku xanto dhammaanba si wanaagsan inaad ula tacaamusho hada huwa alislaam islaamka xaqa wakaa waa in adigu naftaada la dagaalantaa maaha inaad tiraahdo taa xarash waa isku haynaa qofta jinnigayga iska nacab jinniga wuxuu nacabya mala adigaa nacab shaydaanka iska naar dhiigaygaa nacab isma aragno waxba kama jiraan shaydaanka iska naar kibirka iska ilaali qofkaa u tag qofkaas ku dhacdaan u tag walaashaa wey nebigu wuxuu yidhi waxaa fiican qof salaanta bilaabo waxaasoo dhan waa tacaawun cala albiri waataqwa dadka dhan isku mid ma ah adigu qof mu'min baa tahay mu'minad baa tahay adduunkaasa waxaa u tahay ambasador baa u tahay safiir baa tahay dadka inaad khayrka ku soo xirto safiirad baa tahay inaad dadka khayrka ugu yeerto haddii adigu aad xirto ka waran oo aad tiraado dadka unbaa la tacaamulaya kuwaana la tacaamuli maayo qof kasta inaad soo jiirto dabeecadaada waa inaad ka bedeshaa dadka kale khayrka oo leedo gabadha waa gabar muslimado khayrkaan ku jeclahay hadda adoo qofka kula tacaamulinba maxaa ku jeclaad walaalay maba istaqaanaanbe salaada dadka lama dhaafto awalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum ifshu salaama baynakum nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu ku leeyahay saxaabada oo mu'miniinta o dhan ku leeyahay jannada geli maysaan ilaa aada isjeclaataan way laakiin maxaa laga hormariyey jannada geli maysaan ilaa aada rumaysaan ilaahay subxaana wa tacaala mana rumaynaysaan ilaahay ilaa aada isjeclaataan awalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxababtum ma idiin sheega wax haddaad samaysaan ee aada isjeclaanaysaan ifshu salaama baynakum salaanta salaam wanaagsan haddee dhool caddeynna ay ku jirto gabadha walaasha markaad hormarayso inaad salaanto tan iska xuntiini tan kaleba si fiican u salaami asalaamu calaykum salaan keliya qallan maa asalaamu calaykum oo iska socoto salaan iyo waxaa laga wadaa taxiya asalaamu calaykum waraxmatullah barakaatu ii warama soo lama ladno maxay keenaysaa taas waxay keenaysaa qalbi wanaagsan qofkii dariska ku jeclaanaya maxaa ku jeclaatay salaanta dadka lama dhaafto waraxadaada sooma marka sidaa daraaddeed walaalayaal qalbigeena annaga waxaan u baahannahay inaan furno waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd waa dadka aan haysan adduunkan shartu way badan tahay gaaladaa badan munaafiqiintaa badan xumaantaa badan anagu inaan mu'miniinahay ilaahay baa og laakiin waa dadaalaynaa bacduhum awliyaau bacd barka kale waxa way xigtay yihiin waa isjecel yihiin khayrkay wadaagaan wanaagay ka shaqeeyaan waxa way issaamaxaan haddii mid khalad ka dhaco waa la issaamaxaa ya'muruuna bilmacruuf wanaagay isfaraan wayanhawna cani lmunkar xumaantana waa reebaan wayuqiimuuna asalaa salaadana waa oogaan wayu'tuuna zakaa zakadana waa bixiyaan wayutiicuuna allaha warasuulah ilaahay iyo rasuulkiisana waa adeecaan salaada waa oogaan dadkay wanaaga faraan xumaanta waa reebaan guri deriska hadduu jiro axwaaleysan
gabdhuhu aysan tukaneen salaadna ay garaneen xumaantana ay ku badan tahay music ay maanta iska shidanayaan dharka waxa way jirkooda aysan dhowreenin kuwaas si wanaagsan baa loogu tagaa ma aha muxaadaro in loo iclaamiyo maanta oo dhan masaajid ma aha kaliya guriga loogu tagayaa maalinta ugu horeyso booqo maalinta ugu dambe hadiyad u geey marka saddexaad waxa tiraahdaa kaalmo cajiladan aan dhageysanay YouTube-ka u fur muxaadaro yar u dir soo jiido qofka hal qof soo jiido laba soo jiido saddex soo jiido taasa waxay tahay shaqada mu'miniinta qofka inuu ku aqbalo iyo inuu ku diido adigu shaqadaada ma ah shaqadaada waa gaarsiin ma calayka ila albalaag qof baa laga yaabaa inaad ku daasho oo maasaade u waday 6 bilood waliba maalin kasta way sii socotaa wallahi tan waa ku daalay ma dhow inaad iska dhaafi doonaa umaleen baa leedahay maya adigu shaqadaada ma ah ma calayka ila albalaag baa nabi lagu yiri adigu bimusaytir matid ما أنت عليه بمسيطر قفك أذل لقوم درسن إنه هنوني إن كله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إلهي بقفك ودونه هنونيه أذلكم حال جاربة جارسين بلا جاربة جارسين قلبي ولا سنة جارسين فرحات كجرته جارسين خير وكجره تضبطان إن سو أروران أو دعوة لو دعوة ما شاء الله تضبطان بايمد مهمة معها مهمته waxa weeye inta adigu aad gaari karto hal qof nabiga salaatu rabbi wa salaamu alayhi diinta sa ku bilaawatay khadiija abu bakr zayd ali inta soo sano kadib tartiib talha sa'd sa'id kadib rakla imaan abu dhar tartiib dhowr sano anagu waxaan rabnaa hal sano marka dacwada adigu wado ama dadkaad u yeertay inay isla markaa ku aqbalaan suurtagal miya ma waxa way shaqadan waa shaqo cabaar soconaysa adigu laakiin dadka imaan doona maanta miraha aan guranayno iyo dacwada maanta aan ku taaganahay ma anaga bilowday waa maya ragii bilaabay iyo dumarkii waa hore dhintay dadkii waa tageen miraha maanta aan arkayno gabdhaha xijaabka jiidayo dhalinyarada salaada waxa misaayada soo buuxinay ma arkin ayaga laakiin ayaga bilaabay anaguna wadadii baan saaranahay inaan wadno khayrka adduunyada intaan joogno diinta islaamka inaan u gargaarno adduunyada intaan joogno inaan waxa way iskaashano adduunyada inaan joogno xumaanta inaan reebno waa inaan xumaanta ka gubataa mu'minka waxa lagu yaqaan qofka mu'minka waxa lagu yaqaan xumaantu marka la sameeyo way gubtaa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika dha'fu al-iman haddaad gacan ku reebi karto intii aad awood u leedahay gurigaada iyo dadka ku hareersan cunugaada kuwa habarirta u tahay gacan ku reeb TV-ga wax fiican xun laga fiirsanayo aan macno lahayn imow dani gacan baa ku leedahay adiga awood iskale guriga lagama fiirsanayo waxaan kala dhigay TV-ga aniga guri aan joogo ama waxa lagama fiirsanayo gacan baa ku raabeysa waxa adiga aad awoodo wixii aadan awoodin dagaal ha gelin arabka waxaan walaalo wax xumaan iska ilaalin arabkii ma kari weysay qalbiga kana hada qalbiga kana ciwis ka war oo adiga agtaada wax kasta lagu sameeyo caadi kula tahay iska daa xoriyadeeda weeye adigu ma aad sameysay maya iska daa sameysay wax wanaagsan ba taa marka adhafu al-iiman wa kasi xaq jirtaa weeye iimaankaada waa dhaif tagay weeye isoo qabo munkarka waa inaad ka gubataa xumaanta marka la sameeyo waa inaad ka gubataa qof mu'min baa tahay gabar mu'minad baa tahay yuqiimuna as-salaah yutuna zakada bixiyaan intii aad awoodo sadaqada qasab ma ah ilaahay subhanahu wa ta'ala ku oran maayo xoolaha oo dhan bix ku oran maayo waxaad soo dhan bixi laakiin waxaad awoodo walaalahaasi khayrka ku bixi wanaaga ku bixi ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مؤمن كالبنيان اسمه كلويه دربي هذا اركسو كلويه يشد بعضها بعض بركه لو قبنايا كليه ما استينان كرتid مؤمن كلو باهيه gabadha mu'minada u baahantay gabadha waxay ku fiican tahay abaabulka iyo isku xirka iyo social network inay isticmaasho gabadha abaabulka iyo waxa ku fiican khayrka loo isticmaalo gabadha waxay ku fiican tahay muhaadaro khayrka loo isticmaalo midba waxay ku fiican tahay hadalka dadka sida loo soo jiido khayrkaas u fiican midba waxay ku fiican tahay cod kar inay tahay
khayrka ha loogu mid baa ku fiican tahay caafimaadka ha loogu yeero dadka caafimaadka ha barto mid baa waxay ku fiican tahay managementka iyo administrationka ha loo isticmaalo mid baa maamo waxay ku fiican tahay abaabulka iyo hadalka macaan iyo gabayga iyo wanaaga ha loo isticmaalo nabi salawaatu rabbi wasalaamu calaa xasaan ibn abi thaabit wuxuu ku yidhi muxuu ku yidhi xasaan ibn thaabit wuxuu ku yidhi uhjuhum wa ruuxu lqudus macak waxa waaye markii ay carabta nebiga caayeen ee waxa weeye wax badan ka sheegeen wuxuu yidhi nebigow waxa weye aniga ma u jawaabi karaa u jawaab buu yidhi oo waxay dhaheen ku dheh ruuxulqudus jibriilna waa ku taageerayaay marka gabayaalna laga helo dad wanaagsanna laga helo dad meel kasta qofka mu'minka waa khayr weeye wax kastuu ku fiican yahay ummadda uga nafcin karaa marka qof kastoo anaga waxa waaye dhammaanteen waa isku fiicannay qofka xoolaha bixinaayo qofka wax taageerayo kan ka shaqaynayo kan abaabulayo sheekha microfonkas waxa way qabsanayo gabadha waxa way wacdinayso inteena dhan waa isku baahannahay haddii hadda la is abaabulin oo laga shaqeyn arrinkaa khayrka waxaan oo kale ma dhici lahayn ma dhacaya dad baa hadda gogoshaan dhigay qof baa camera la yimid qof baa waxa way gogoshaan kala dhigay qof baa sheekha soo balamiyey waxaasoo dhan waa inaan iskaashanaa weeye وتعاونوا على البر والتقوى مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد مؤمنين أنا وحنا هي مسلمين مثل الجسد الواحد جركا أو كامل ماذا حدي لقى قبته جركا نبى واحد هذو الدنيا يكونوا مسعون كتير هذه لقى قبته لقى ما تلاقيها نحن وحنا واسكبها حنا هي يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إلهي سبحانه وتعالى هذا أقرقارتان إلهي وإذين قرقاري هذا إسكفر للسنة وقف كسي والله يا مسلمين واسكر دباتي سيئين إلهي دبات هذا حقا قرقاضو دعوة كريه وأن شقلها مسعون ليس إن تنصروا الله ينصركم هذا أمرك ركع إلهي وحق قبض إلهي أقرقار إن تنصروا الله ينصركم إلهي ولو قرقاري وحقبت كينا أي إلهي نو قرقاري إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ونا إن السوي نفت هذا أقرقارته إلهي سبحانه وتعالى إلهي وكو قرقاري هذا اسكفر يساتر هذا دنبي ما سكر الله واسكفر يساته حتى اسكجوج الله أنا حتى أركايا ما وحا أركايا أنا حاج كاين من وحا صومني جدا guriga meesha degan tahay maamadii markii aan xogaa fadhinay waxa gashay qabyaalad iyo wax daran weyna soo xadiso waxa ku imaam wala soo xajiyay xogaa laga kala yareeyo iska ilaahay ka cabso waxa sheekho ilaahay ka cabsanay reer hebel sanadkaas ka soo xajiyaabay hada sanadkaas ka soo xajiso maxaa adiga ugu noqonaysa dambiga ya sanadkaas ka soo xajiya waana ku noqonayaa dambigii waxa weey deyn maayo wax soconaya ma aha dambigii deymay wax soconaya ma aha haddii sanadkaas ka soo xajiso maxaa ugu noqonaysaa haddaad og tahay dembiga inaad ku dhacayso ma iska qabatid marka waxa kaa celin kara waxa weeye walaaltinimada mu'miniinta inaad markasta la joogto iyo khayrka aad waxa weeye haddii anagu hadda markaska iyo meelahan aan ka maqnaano oo subax kasta keliya soo kacdo oo aad iska joogto dad xoogaa daciif iskala noolaato haddii adiguna daciif baa noqon biyo kaa badan iyo dad kaa badan waa ku hafiyaan haddaad keli iska noqoto adduunkan waa imtixaan daari libtilaa weeye dagaal baa lagu jira naftaada markasta inaad la dagaalanto imaamu sufyaan athawri wuxuu leeyahay xaarabtu nafsii jaahadtu nafsii 20 sana nafteeda 20 sana la dagaalamay oo markay saan tiraansaan ah markay saan tiraansaan ah markay waxa way fartu waan ka reeba 20 sana 20 sano ayaa nafteeda la dagaalamay fa ataatni 20 sana 20 kii dambe nafteeda waa aqbashay naftana waa waxa aad barto weeye hada salatu leyl barto salatu leyl way soo kacay hada khayr barto khayrka way ku soo way wadi hada iska barto in iska seexato naftu wax kasta iska sameeyso oo cibaado aysan sameyn quraan aysan akhrin mayso quraanku waa culays buku waxana sabah laakiin khadka in lagu jiro ilaa 6 saacadood culays ma aan la yara waxa ku inuu khadka ku jirtay quraan ku didaa sheekh Muute khadka waxba isroogayay wax inta u gelaysa laakiin quraanka marka page akhriyo waa walmoonaya hurda ay qabanaysa warshadaanka iska narnaa
hurda ay qabanaysa maxaa weeye waa shaydaan. qur-aanka inaad akhriso oo aad barato nafta in la baray u baahan tahay. maalinta ugu horeysa kuwa adkaanaysaa, maalinta labaad, maalinta saddexaad, marka afaraad iyo shanaad waa la qabsanaysaa. amaa naftu way rabtaa baha kan la salaaxaysaan marna kor marna hoos. adoo is ogeen baa 10 saac weliba la gaaray. yaa adoo is ogeen baa 10 saac la gaaray, laakiin maxaa ku maqneed waa su-aasha. وتعاونوا على البر والتقوى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. إلهي كو أقرقار له، إلهي إنه أقرقاره واسيده ونكسن سومرت إلهي إنه قحصه ودري سأقرقار ويستاق إلهي الدين تيسا ما هنا ولاد نقطه هبلاي ولاد بريها النقطه ودعوة سيكون جرتاي تتكا الله يسكدها. adigu yowm alqiyaama ilaahay baa hor istaagaysaa. waxaad noqotaa qof ilaahay u gargaara gurigaada markaad joogto, suuqa markaad marayso, markaad meel fadhido, dukaankaada markaad joogto, meel kasta aad joogto. kunuu ansaar allah, ilaahay kuwa u gargaara noqda. waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr wayamuruuna bilmacruuf wayanhawna cani lmunkar. ummad hadiga mid noqoto oo dadka khayrka ugu yeerta. khayrka waa wanaag oo dhan, wax kastoo khayr ah oo wanaag ah adduunyo dadka anfacaysa iyo aakhiro dadka ugu yar. xoogaa meel baa wax lagu sheego khayr ah wanaag ah, xataa adduunyaha aad war hayad adduunya inta lagu sheegay khayr badan walaalo kaale qaado waxaan kaale aan ku siiye. qalbiga muslimka waa qalbiga furan weeye. xasad ma yaqaan, ma yaqaan waxa weeye xiqdi, ma yaqaan xumaan. qalbi furan weeye. qalbigaas waa dadka ilaahay kuwa ugu jecel yahay. قلبي صافية. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مؤمن كامل متد إلى أن رجع على طولاشة وحنفترض رجعشه، حنفترض رجعشه وناق يا خير يا برواقه يا هالمرء وحكسه رجع له ولاشة، رجع له ولاشة خيرك رجع له وناق رجع له. قلبي قال حسد كإلالي بغي كإلالي هدو حسد كوجره إلهي أولقه سجود بض إله حقدي حس إيه صار إله قلبي سافية كويديس تذكر والد ويديس إلهي قلبي سافية ونكسن قلبي ونكسن أو سافية إلهي والد ويديس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. حماة أرم وناقنا كشقين استاقولين خير كوضا الشقين تاو حقون غينا تظهر مرقاي. إلهي سبحانه وتعالى مركب أردته خيرك وحي الله خير في كثير من نجواهم شيكوينك يوحيابها أن كجرنا بدنكم شاتينك بدن وصف جروب يدا بدن لا خير في كثير من نجواهم هذا هوس أسكوجر لجينا بدن خيركم مجرم إلا صدح على الغصار من أمر بالصدقة قفك صدقة أمر أو معروف أو ونال أو إصلاح بين الناس أما ضدك إصلاح ضدك اسكوحر حوغا إلى نحق الشو أو أتكشق يسو وعملك كان وين وصابيغا الجروب يدا بدن لسمينا كان كي دريسكا وصاب جروب كان كوا كي دريسكا كوا كيرير هبل كوا كيسا كوا قبلها صاحبة كوا طبعا وصاب جروب أكو جرتا خير ما لوغا الله يا مس الشر يسوي ديال وحي الشر لوغا الله كبح لفت هلا أركو أظن لفت له هلا أركو إلهي درته قبح waxaan ka xishoonaynaa badanka ilaahay ama iga xumaatay ilaahay u soo dartay haddii meesha waxa lagu sheegayo iyo meesha waxa isku imaana ee shar tahay iyo xumaanta ka bax khayr ma laha hadalada badan la iskaga yimaada iyo sheekooyinka illa man amara bi sadaqati qofkii sadaqada ka noqonaya qof baa dhibaataysan gabadha ku sadaqada hadda gabdho waxa jira ii imaaday shar mise darad wiil yar iyo gabadh dad xogaa dhibaataysan bay ahaayeen gabdhaha waxa way u galay dariska meelaha kale u galeen waxa u soo aruuriyeen waxa way cunto biil bay waxalaysi dhowr bilood bay hayaan dadka khayr soo ka shaqeyn sadaqa isku soo qoray qof og malaha waa dhalinyaro isku tagay adiga sameyn kara meesha deginta ka sameyn kartaa
mu'minka waa kalghayth roob oo kale waa meeshuu tagoba dadku waxa way ugu barwaaqayaa aw macruufin ama wanaag dadka amar aw islaaxin bayna annaas ama dadka waxa way isku xun ama xoogaa wax dhexgala ama shaydaanka dhexgalay dadka kala hagaaji oo waxa way dhexdooda wanaag yah ilaahay subxana wa tacaala waa kuu gargaari khayr buu ilaahay ku siin tawfiiq allah noofajiyo khayrka ilaah noofajiyo waqtiga waa iska bara waxa weeye gabagabo intaasaa waxa weeye kusoo gabagabaynaynaa baaraka allahu fiikum insha allahu tacaala gabdhaha iyo maamooyinka ayaa insha allahu tacaala iyo idinkaba dhammaanba qofkii khayr uu ku jiro iyo qofkii wanaag rabo iyo insaan hadda sheegayna inaad kaashataan insha allahu tacala tawfiiq allah ha noofajiyo خيرك الله سبحانه وتعالى هنا وفجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا يا رب ادخلنا الجنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على خير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين